muddo 6 isbuuc ku dhan siyaasadda Imaaraadka uu kula dhaqmayo Soomaaliya heerar kala fog bay soo martay. nama khuseeyo waxa ay leedahay dawladda federaal Somaliland waa dawlad madax bannaanayd 28 sannadood. waxa ayna hoos imaanayeen taageerada Soomaaliya mid ah innaga qunsuliyad kuma lihin Somaliland safaaradna kuma lihin xiriirna lama lihin iska badaaya waxaan kaalin fududayn ah ku lahayn inaanu kulanna u qabanno madaxda Soomaalida. waxay ahayd bil Ramadaan 5 Juun 2017 dalal ay horboodayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ku dhawaaqay go'doomin iyo cunaqabatayn ka dhan ah Qatar. Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay cadaadis saareen dawladda Soomaaliya iyagoo ku qasbaya inay xiriirka u jarto Qatar, balse dawladda Soomaaliya ayaa qaadatay door dhexdhexaad ah. wixii markaa ka dambeeyay Imaaraadku wuxuu bilaabay inuu faragelin iyo daandaansi siyaasadeed ku sameeyo siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya, iyaga oo xiriiro iyo heshiisyo aan sharci ahayn la galay maamulada federaalka ee dalka ka jira, halka xukuumadda Soomaaliya ee mar walba ahayd mid sheeda kala socotay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Imaaraadku ka wado dalka. dawladda Soomaaliya ayaa muujisay adeeg siyaasadeed waxayna diiday damacii dulmiga ku salaysnaa iyo siyaasaddii qursiga ahayd ee Imaaraadka. Soomaaliya waxay diyaar u tahay waddan walba oo caalamka ah inay la jaanqaado oo ay la saaxiibto oo aan naloo tilmaamin waddankaan la saaxiibi lahayn iyo waddankaan la culoobi lahayn. taasna anaa ugu horreeya oo leh Soomaaliya waa xor, dadkeenu waa xor, dalkaan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dana Soomaaliya ka shaqeynaya. waddan walbana waxaan rabnaa inaan macaamil la samaysano. markii uu soo baxay heshiiska DP World, Soomaaliya waxay dacwad ka dhan ah Imaaraadka u gudbisay beesha caalamka, gaar ahaan wadamada Jaamacadda Carabta, iyadoo markaas uga ashtakoonaysa faragelinta uu Imaaraadka ku hayo. mar kale xaaladda labada dal ayaa cirka isku shareertay markii muqaabalaadka Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen bilowgii bishii Abriil diyaarad siday lacag 10 milyan ku dhow, taas oo keentay in xiriirka labada wadan uu si weyn u xumaado. dawladda Imaaraadka oo siyaasad ahaan ku wiiqantay Soomaaliya ayaa weli wada qorshaheedii ahaa qaybi oo xukun. markan laba dhan bay u soo maraysaa inay la dirirto madax bannaanida iyo dawladnimadeena, maamul goboleedyada iyo warbaahinta. dagaalka warbaahinta ee Imaaraadka iyo Qatar dhex maraya ayaa waxaa sidoo kale qayb ka noqday Soomaaliya, waxaana warbaahinno rasmi ah iyo kuwa bulshada ay baahiyeen muuqaallo suurad xumeynaya Soomaaliya. 2011 markii kacdoonno bulsho ay ka dhaceen wadamada Carabta ayaa waxaa caddaaday saamaynta ay baraha bulshada ku leeyihiin bulshooyinka. markaa dawladda Imaaraadka ayaa waxay aasaastay kooxo abaabulan oo ka shaqeeya baraha bulshada si ay uga gaashaamato wixii ka dhacay Masar oo kale. hadda kooxahaasi waxay u isticmaalaysaa propaganda ka dhan ah Soomaaliya, balse waxaa arrinkaa ka hor yimid dhalinyaro Soomaaliyeed oo luqadda Carabiga wax ku qora. waxaa jiro kooxo oo dawladda Imaaraadka Carabta oo abaabulan oo maalgeliso. kooxaha shaqada tahay inay ajendaha dalka Imaaraadka fuliso, inay dagaal ku qaado waxay dawladda Imaaraadka diidan yahay, waxay dawladda Imaaraadka dan ka leedahane amaanto ama faafiso. Soomaaliya waasna waxaa loo yaqaanaa adlaab electronic, waxayna aad u joogaan warbaahinta Twitter boqolkii 2 ama 3 Soomaaliya ka isticmaasho. Soomaalina boqolkii 50 ka badan af Carabi kuma hadasho oo ma taqaano. danta laga leeyahay oo kooxdan abaabulan oo ku weeraraysa Soomaaliya, danta koowaad ka leedahay waxa waaye shacabka Imaaraadka, shucuubta khaliijka iyo dadkii warbaahinada dhageystaan inay tashkiiliyaan oo dhahaan Soomaaliya waxaa la wareegay dalka Qatar, ajendaha cadawgeena ay ku jiraan si birito hadii wax Soomaaliya go'aan ka gaaraan ganacsadooda iyo jaarida joogta Soomaaliya ku dhaqan dalka Imaaraadka Carabta ama dawladda Soomaaliya dib u geystaan ama dhaqaalaha ka jaraan ama ciidanka rabaxan ama istaagooda xiraasi si u dhaqmeen siyaasadda dawladda Imaaraadka iyo dantii leedahay sidii dadka laga gado. dhanka kale maamul goboleedyada ayay adeegsanaysaa. Cabdiweli Gaas oo tagay Imaaraadka ayaa hormuud u ah weerar celis Imaaraadka la damacsan yahay dawladda Soomaaliya.